waxaan joognaa barxaddii Kenya LLBB Kenya waxaa yimaaday dad oo dhahayo barxadihii dawladda oo LLBG waa dhisanaynaa waxaan ugu digaynaa in aan la dhisan dhulka dawladda oo aan la dhihin anagaa iskale maantadan katarbiil ay geliyeen waa laga joojiyey wasaaraddu waxay u taagan tahay inay ilaaliso hantida qaranka sidaas awgeed dhowaan safar uu ka yimid wasiirkeena markuu idaacadaha ka shaaciyey in la dhisi doono oo dib u dhis lagu sameyn doono garoonkii kubadda cagta ee Kenya ayaa dad shacab waxay isku dayeen in ay boobaan garoonkii inta aysan wasaaraddu aysan ka bilaabin mashruuca dhismaha oo kooxda loogu dhisaayo si sportska loo dhiirigeliyay ee dhalinyaradii dadkii markay idaacadaha ka maqleen waxay isku dayeen inay garoonkii boobaan saakay waxaan warbixin ku helnay in garoonkii cagaf la geliyey dhagax la soo dhigay warqado been abuur ah oo la leeyahay dukumenti waaye annaga dhulkii iskale dhul la yaqaano caan ah la rabo in lagu boobay la dhisto waxaa nasiib wanaag ah maamulkii degmada Yaaqshiid garab fiican ayuu nagu siiyey waan isagana waa soo taageeray waa nala yimid goobtii aan taaganahay hadeertaan waxaan taaganahay goobtii dhismaha ka socday shaqadii waan joojinay waxaan u digaynaa dadka ku howlan inay boobaan hantida qaranka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u digaynaa lama boobi karo dalka dawladdu leeyahay dawladdana waxay ilaashanaysaa hantideeda ama dhul ama guri